Assalaamu calaykum. Markii aan u dirayno qaarkeena nasiixooyin, iwaanooyin, kama dhigna arrinkaas in aan anaga nahay dad dhammaystiran. Ma ahan arrinka sidaas. Ha u fahmin sidaas. Annaga ma nihin macsuum. Bini'aadan oo dhan wuu qaldamaa. Waxaan ugu khayr badan kuwa qaladkooda kadib toobad keeno, qaladkoodana qirta. Laakiinse waa nasiixooyin aan ku wajahayno nafteenna iyadoo ay nagala qayb qaadanayaan dadka walaalahayna ah. Laga yaabaa arrimahaas inuu Alle subxaanahu wa tacaala nagu dhowro, isla markaana aan kula dagaalamno hawadeenna iyo nafteenna. Si walbaan u leenahay cilmi iyo diin, waxaa jiri doona jahli iyo macaasi. Bini'aadankoo dhan macsuum ma aha, laakiin waxaa ugu khayr badan kuwa qaladkooda qirta. Aad ayaan ugu baahannahay in aan isku dardaaranno oonan isku naseexayno wixii dhexdeena ahaaday. Laga yaabaa inaan ahaano dadkii uu Alle subxaanahu wa tacaala ka soo reebay kuwii khasaaray. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. casriga ama zamanka ayaan ku dhaartaye bini'aadanku waxa uu ku sugan yahay khasaaro ilaa kuwii Alle subxaanahu wa tacaala rumeeyey oo iimaanka laga helay, haddana ku camal falay wanaagga oo suubiyey wanaagga, kadibna iskula dardaarmay xaqa, kadibna iskula dardaarmay sabarka.